imise saacadood ayaad habeenkii hurdaa soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxa laga qaadaa cudurro halis ah iyo dhibaatooyin kale oo aad u fara badan. Hadda waxaan doonayaa inaan wax ka sheego qaar ka mid ah cudurrada halista iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhasha soo jeedka habeenkii. Waxa laga yaabaa qaar ka mid ah cudurradaas in aad calaamadahooda aad leedahay balse aadan ka warhaynin. Intaan u gudgelin waxaan si gaar idinkaga codsanaa in aad muuqaalka share gareysaan oo aad gaarsiisaan asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dhig si ay kuu soo gaaraan muuqaalada caafimaadka oo aan maalin walba halkan soo geliyo. Mahadsan. Qofka qaangaarka ah ee caafimaadka qaba waxaa laga doonayaa ugu yaraan 8 saacadood inuu hurdo habeenkii, halka carruurtan ay u baahan yihiin hurdo ka badan dadka waaweyn. Balse nasiib xumo dhalinyarada intoodu badan ma helaan habeenkii hurdo ku filan oo soo jeedkoodii ayaa badan. Sariirtu waxaa loogu talagalay nasiino hurdeed, balse waxaa lala koraa waxyaabo faragelin ku yeesha hurdada sida mobilada ama taleefanada gacanta. Hadda waxaan doonayaa inaan wax idinkaga sheego qaar ka mid ah cudurrada iyo dhibaatooyinka halista ee laga dhaxlo soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka. Soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay keenaan cudurrada ku dhaca wadnaha. Cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu xaqiijiyay xiriirka xooggan ee ka dhaxeeya cudurrada ku dhaca wadnaha iyo dhafarka ama soo jeedka badan habeenkii. Cudurradaas waxaa ka mid ah sare u kac ku yimaada cadaadiska dhiigga, faaliga iyo cudurka wadna qabadka. Dhafarka ama soo jeedka badan habeenkii waxay saameeyaan awoodda jirku isaga xakameyn lahaa sokorta dhiigga, taasoo kordhinayso dhibaatooyinka dheefshiideed kiimikada sida sokorta. Sidoo kale waxay hoos u dhigtaa awoodda jirku isaga xakameyn lahaa sokorta dhiigga. Sidoo kale soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay keenaan ilowsho badan ama xasuusta oo yaraato. Si gaar ah waxay u saameeyaan xasuusta muddada gaaban iyo tan fogba. Maxaa yeelay qofka marka uu jiifo maskaxdu waxay aad ugu shaqeysaa si ay u soo xasuusan lahayd macluumaadka cusub. Sidoo kale hurdo yarida ama soo jeedka badan habeenkii waxay dhibaateysaa maskaxda oo waxay keentaa dhibaatooyinka ku yimaada maskaxda sida asaasaqa iyo qalalka ku dhaca maskaxdaba. Hurdo yarida ama soo jeedka badan habeenkii waxay keentaa buurnida ama miisaanka jirka kordha. Cilmi baaris badan la sameeyay ayaa waxaa lagu xaqiijiyay dadka soo jeedkooda uu badan yahay habeenkii in ay qaataan xaddi badan calories iyo carbohydrate, taasoo sababta ama keeni karta in miisaanka jirku si fudud u kordho. Soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay yareeyaan ama ay qalqalgeliyaan soo deynta dheecaamada jirka ama hormoonada. Waayo hurdadu waxay caawisaa hormoonada oo waxay ka keentaa in hormoonada si habboon ama si wanaagsan loo soo deeyo. Soo jeedka badan habeenkii ama dhafarka waxay keenaan dhibaatooyin ku yimaada maskaxda. Hurdada iyo caafimaadka dhimirka way isku xiran yihiin, oo haddii qofka soo jeedkiisa uu badan yahay waxaa ku yimaada dhibaatooyin xagga maskaxda sida walwalka, stresska ama niyad jabka. Sidoo kale dhafarka ama soo jeedka badan habeenkii waxay yareeyaan rabitaanka ama baahida galmada ayay yareeyaan. Maxaa yeelay waxaa yaraanayo hormoonka testosterone loo yaqaan. Haddii hormoonkaas uu jirkaaga ku yiraahdo, hormoonkaas ragga hadduu ku yiraahdo, waxaa yaraanayo rabitaankooda ama baahida galmeed ayaa yaraan doona. Qodobka ugu dambeeyo oo ah qodobka aan kusoo gabagabayn doono, hurdo yarida ama soo jeedka badan habeenkii waxay keenaan ama ay sababaan in difaaca jirka uu yaraado. Jirka awood badan ma u yeelanayo in uu isaga difaaco waxyaabaha halista ah jirka soo weerara sida bacteria, viruska iyo waxyaabaha la midka. Fadlan ku dadaal caafimaadka naftaada oo qaado hurdo ku filan habeenkii ugu yaraan 8 saacadood. Carruurtana waa in aad seexisaan in ka badan 8 saacadood. Fadlan ha iloobin in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiisaa asxaabta kugu xiran si ay uga faa'iidaystaan. Sidoo kale muuqaalka like saar, page-kana follow dhig. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.